بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال صاحب بيال halkan waa janalkeenu kuleena YouTube madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiib bayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadan idinku soo maqan waxa kamid noqonaya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo markii ugu horeysay soo hadlay isagoo si weyn kaga tacsiyay geeridii ku timid Rabbi ha u naxariistay General Farxaan Maxamuud Qaroole warar dheeraad ayaan saaxiibayaalideena Fahad Yaasiin xooga sira ayuu banaanka keenay kiiska Ikraan ayuu ka hadlay hooyo qaali inuu la kulmay ayuu sheegay Turkiga inuu ku sugan yahay ayuu sidoo kale tibaaxay madaxweyne Xasan iyo dawladda Damul Jadiid ayuuna waxa uu ku bogaadiyay dagaalada adag iyo howlgallada culus ee ka soconaya dalka isla markaana lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab doorkiisii Al-Shabaab xilligii uu ahaa agaasinka Niza ayuu sidoo kale xusay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xoga sirdoon ayaa barnaamijkeena idinku soo gudbi doona faalada uu qoray iyo arrimaha uu kaga hadlay ayaan halkan ku odorosi doona dawladda federaalka Soomaaliya oo cilaamisay dagaal jiha cusub ah oo ka dhana Al-Shabaab ayaa sidoo kale soo qaadan doona Somaliland muddo kordhin 2 sano ayaa loo sameeyay madaxweyne Muuse Biixi soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal daawade muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo bir subscribe inoo saar channelka Faraga Mararka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawade saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay markaana aynu ku bilowno Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa faala ka qoray shakhsiyadii General Farxaan kumuu ahaa Farxaan Qaroole ayuuna ku bilaabay warbixintiisa ama wafaaladiisa wiil dhalinyaro ah oo gaaban oo misana caata ah oo haddana baryar bashaasha sida magaciisa ka muuqato aad farxaan u ah fariidnimana u dhashay fiiro dheer hadal yar misana qorshe dejisan kara qarankiisa iyo madaxdiisana daacad u ah dhiiggiisa iyo dhididkiisana u horay dalkiisa godkii jannadana u galay insha Allah isagoo difaacaya sharafta iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed magaciisa sidoo u faafay sidoo u jin yaraa iyo da'diisa siday u yareed intaas kaliya sabab uma noqon karin darajada uu gaaray ee wuxuu maqaam sare ku mutaystay daacadnimada howlkarnimada wadaniyadda iyo qaran jaceylka qalbigiisa ku abuurnayd wuxuu ka mid ahaa dhowr dhalinyaro ah aan ku bartay shaqada amniga iyagoo ah saraakiil dhexe wuxuuna aad u jeclaa in uu mar walba wax barto oo uu aqoon ciidan kororsado wuxuu qayb ka ahaa ciidankii laga wareejiyay nabad sugidda ee loo wareejiyay booliiska ma uusan iska dhigin sargaal xil raadinaya ee wuxuu la xarooday asgar tababar loo xareenayay oo lagu aasaasay ciidankii Haramcad wuxuuna galay dufcad tababar ku qaadatay Xamar iyo Turkiga wuxuu soo laabtay isagoo helay aqoon booliis iyo tababarka howlgallada gaarka waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka gaarka u tababaran ee Haramcad wuxuu lahaa sifo ay aad ugu yartahay hogaanada ciidanka taasoo ah in uu saaxiib dhow la ahaa ciidanka uu madaxda u yahay iyo inuu daacad u ah qarankiisa dawladihii kala duwanaa ee dalka soo maray intaba si daacad ah ayuu u gudanayay shaqada qaran waana sababta dawladii timaadaba ay u aamintay oo uu mustaqbalkiisa mar walba horumar u gaarayay 3 qolo ayaa mudan inaan uga tacsiyo geerida xanuunka badan ee ku timid walaalkeen haliyay General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole ayuu yiri Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyay hore ee amniga qaranka qolada koowaad waa qoyskiisa oo ay ugu horeeyaan waalidkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa waxaana leeyahay geeridu waa xaq ee samir iyo iimaan Allah idinka siiyo marxuumkana jannadii Alle ha geeyo ilmihiisa iyo qoyskiisana Allah dooro oo barakeeyo waalidkiisana waxaan si gaar ah u leeyahay qadarta Ilaahay raali ku noqda rabbigii abuuray ee koonka keenay baa hadana naga ceshaday qolada labaad waa madaxweynaha iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay mudane madaxweyne
waxaan kula qaybsanayaa amaba kula qaybsanaynaa xanuunka iyo tacsida geerida ku timid General Farxaan Qaroole oo maanta shahiiday isagoo gudanaya waajibka qaran ee aad fartay oo ah la dagaalanka argagixisada. madaxweyne samir iyo imaan allaha kaa siiyo, waxaana ku rajaynaynaa in aad ku guulaysato horumarinta tayada ciidanka iyo nabadeynta qarankeena. sidoo kale ciidanka booliiska ee uu ka mid ahaa General Farxaan waxaan ku sii adkeynayaa in geerida shahiidka qaranka Farxaan ay ku dhaliso dhiiranaan iyo dhiigga iyo dhididka in loo horo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. qolada saddexaad waa shacabka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay ogaada in dalkii ay u kaceen dhalinyaro wadaniyiin ah leh xirfad iyo tababar ciidan oo sare, qarankoodana daacad u ah, kana mid ah qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. sidaas daraadeed boqolaal Farxaan oo kale ah oo booskiisa buuxiya shacabkoodana difaacan waan leenahay. waxaana ilaahay ka baryaynaa in madaxda qaranka uu haleeshiyo inay soo saaraan awoodda iyo tayada dhalinyarada kor u qaadi kara rajada iyo niyadda shacabka Soomaaliyeed. walaalkay Farxaanow, waan ogahay inaysan ku soo gaaraynin fariintan, laakiin waan ku qasbanahay inaan kuu soo diro. Farxaanow, in aad jid xaq ah ku dhimatay, in aad dalkan daacad u ahayd, in aad sargaal qaran ahayd ood ka saaraysay siyaasadda, waxaan ku gartay madaxdii ummadda Soomaaliyeed oo dhan. khilaaf kasta oo dhexdooda yaalay intay gees isaga dhigeen, waxaa mideeyay in ay ku wada duceeyeen, ku wada ammaaneen, iyagoo ku wada jecelna aad shahiiday. naftaadii dalkaad u hibaysay, geeridaadiina dadkay midaysay. rabbigay jannada guri ha kaaga yeelo, dembigaaga adduun xasanad ha kuugu bedelo, anagana gadaasha eebba nama fidneeyo, ayuu yidhi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo warbixintiisa kusoo gabagabeeyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, ahna la taliyihii hore ee amniga qaranka madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dhanka kalena daawadayaal saaxiibayaal, haddaynu abbaarno waxaa markaasiba la soo warinayaa in General Farxaan Qaroole markaasiba arrimo badan lagu xasuusanayo, isla markaana madaxda qarankaba ay siyaabo kala duwan ninkani u ammaaneen. waxaa inta badan Xasan Sheekh iyo sidoo kaleba Xamza ay ku nuuxnuuxsadeen ninkan iyo kaalintiisii dagaalka Al-Shabaab ee haatan wadanka ka socda. dhinaca kale, dowladda waxa ay iclaamisay dagaal jiha cusub ah oo ka dhan ah Al-Shabaab. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa shaaciyay in dowladda ay qaadi doonto dagaal maaliyadeed oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si loo xiro ilaha dhaqaalaha ay hesho loona ballaariyo howlgalka ka dhanka ah kooxda. xeer ilaaliyaha ayaa xaqiijiyay in dowladdu si rasmi ah ay u bilowday howlgalkan ujeedkiisu yahay sidii loo xayiri lahaa dhaqaalaha Al-Shabaab si looga miro dhaliyo howlgalka lagu wajahayo, isla markaana uusan u kobcin dhaqdhaqaaqa markaasiba kooxda. waxaana arrinta tan imaanaysaa xilli madaxweynaha qaranka xitaa uu ku baaqay. Dr. Suleymaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxaa kale uu ku sheegay inay dembi tahay in dhaqaale la siiyo Al-Shabaab ama loo fududeeyo, sidaas darteedna uu xafiiskiisa bilaabayo howlgalka socda kaalinta uu ku leeyahay. sida ay geesiyaasha ciidamadeena Soomaaliyeed ee qalabka sida iyo kacdoonka bulshadu ay u wadaan dagaalo nafurnimo ah oo ka dhana kooxda argagixisada, waxaan halkan ku iclaaminayaa dagaal maaliyadeed oo ka dhana maalgelinta argagixisada iyo dadka gacanta kula jira dambiyada lacag dhaqidda. waxaan kula diriri doonaa gudaha iyo dibadda meel walba oo ay joogaan, ayuu ku yidhi qoraalka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. sidoo kale waxa uu xusay in xafiiskiisu uu bilaabay baarista kiisaska la xiriira lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta nacfiga ka soo gala Al-Shabaab, iyadoo arrintaasi kala kaashanayso hay-adaha kala duwan ee dowladda. ugu dambeyntiina saaxiibayaal daawadayaal, haddaynu anba qaadno Somaliland, madaxweynaha maamulkaas ayaa loo kordhiyey muddo kororsi 2 sano ah. golaha guurtida Somaliland ayaa muddo kordhin hor leh u sameeyay madaxweynaha maamulkaas Mudane Muuse Biixi Cabdi kadib kulan xasaasi ah
oo ay ku yeesheen xarunta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa. Golaha ayaa 2 sano oo dheeri ah ugu daray madaxweynaha iyo xukuumaddiisa kadib codeyn gacantaag ah oo ka dhacday xarunta guurtida Somaliland. sidoo kale golaha guurtida Somaliland ayaa iyaguna ku darsaday muddo xileedkooda 5 sano oo dheeri ah, waxaana golahan uu yahay kii uu horeeyay mana jiro isbedel lagu sameeyay tan iyo markii la dhisay, waxaana markasta loo kordhiyaa muddada xilhaynta. kulankan oo aad isha loogu hayay ayaa markii hore loo diiday wariyaasha, balse dood dheer kadib ayaa loo ogolaaday, waxaana lagu dhawaaqay muddo kororsiga. tallaabada ay qaadeen golaha guurtida ayaa ahayd mid la filayay, waxayna ku soo aaday xilli toddobaadkii hore guddiga doorashada Somaliland uu ku dhawaaqay inuusan xilligeeda ku qaban karin doorashada, uuna u baahan yahay ugu yaraan ilaa 9 bilood oo dheeraad ah. lama oga sida ay noqon doonto falcelinta xisbiyada mucaaradka oo si weyn uga soo horjeeday muddo kororsigan, kuwaas oo horey dibadbaxyo uga dhigay Somaliland. si kastaba ha noqotee, doorashada guud ee Somaliland ayaa ku aasteysneed 13 bisha November sanadkan, balse Muuse Biixi ayaa ku darsaday 2 sano, taas oo ka dhigaysa muddo xileedkiisa 7 sano. waa inaga intaa warkii